بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن بروفيسور حسن شيخ محمود، قدوميها ولاها شعبك مدن آذن مذوبة، قدوميها أقل كسرة مدن عبد حاشي، قدومية كحجينك ولا شيء أبريرتي سعدية يجوز زارة كحجينك قدومياشي هوريكم يلقاك دمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلبانا وزيرة نواهي المامر هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii wixii la sheegi karo waa la sheegay, hadal waa intii hore loo yiri. Aniga kaliya waxaan rabaa inaan kelmadeyda ku soo koobo mahadnaq cawada meesha aan joogno iyo 20 bilood ama sanad iyo 8 bilood meesha aan joognay September 17 2020 iyo caawa farqiga u dhaxeeyo waa garan kartaan. caawada horteeda waxaa fadhiya madaxdii qaranka oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud. waxaan leeyahay marka hore hambalyo, marka labaadna u duceyneynaa inuu ilaahay xilkan adag u fududeeyo. 4 sano ee u bilaabatay inuu ilaahay uu nabad ugu dhameeyo loona duceeyo. dib ugu noqonayo wixii hore u dhacay. waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh oo duruuf kasta oo adag na soo dhaafiyey. haddaan alla u mahad celina dhammaanteen meesha aan maanta gaarnay iyo meesha aan u soconno ma gaari doono. marka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadsanid. dhibka aad naga saartay, duruufaha adag ee dalka ay soo martay. maanta dalka waa degan yahay, siyaasadda dalka way degan tahay, xaaladda dalka way degan tahay, amnigii wuu soo noqday, dhaqaalihii hadda bilow hay-adihii caalamka dib u soo celin ayay ku sameeyeen, bajedyadii ay ku soo borgarin jireen dowladda, shacabkii ganacsigii dib ayuu u soo noqday. alxamdulilah. intaasna waxaa u sabab ah siyaasadda maanta degan ee aan haysanno. insha allah madaxweyne xasanna waxaan ilaahay uga baryayaa 4 sano inuu si nabada nagu gaarsiiyo. waxaan ka sugaynaa waa doorasho qof iyo cod ah hadduu alla subxaanahu wa tacaala idmo, oo aanan dib loogu noqon dhibkii la soo maray ee ahaa doorasho dadban. inuu ilaahay mar kale dib noogu soo celin arrintaas ayaan ilaahay isagana ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala. hadalka kuma dheeraanayo, waqtiga waa waqti dambe. maalin shaqo oo adag ayaa la soo maray. dhammaan inta ka soo qayb gashay iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo arrintan doorashada u gurmaday, u soo duceeyay, masaajidyo badan looga soo duceeyay, kacbada looga soo duceeyay. dhammaan waxaan leeyahay xilligii Ramadaanka waa aad ugu soo duceysaan dalkan. maanta waa haysanaa insha allah. waxaan wadamada carabta hadda ka soo bartay in qofka madaxda ah loo duceeyo. shacabka Soomaaliyeedna dhaqan ma lihin ducada. markaan fiiriyay sababtoo ah waxay moodaan in madaxda aysan iyo shacabka aysan xiriir ka lahayn, aysan wax wada lahayn. waxaan ogaataan waxaad ka soo qaadaan dukaan, haddaad $100 ama $1000 aad ku darsatid, dukaankan ninka gadayo 24 saac waa u duceynaysa inuusan khasaarin, soo maha. marka madaxda dalka hawsheenii ay wadaan maahan wax kale ma wadaan, hawl kale ma wadaan. hantideennii, amnigeennii, siyaasadeennii ay gacanta ku hayaan. sidaa darteed haddaana loo duceyn iyagana waa rafaadayaan, annagana waa khasaaraynaa. marka annagoo teenna tixgelinayno aan u duceyno inuu ilaahay u fududeeyo si aan annagana u badbaadno, iyagana ay noo badbaadiyaan, allana uu gacan ku siiyo. waa mahadsantihiin. habeen wanaagsan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.